بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال iyo marwooyin marka ugu horeysa waxaan salaam diiran halkan aan uga dirayaa shacab weynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya sidoo kalena waxaan salaamayaa telefishinka ama idaacadda maqalka iyo muuqaalka koonfurta galbeed ee dalka Soomaaliya caawa anoo marti ku ah stuudiyaha koonfurta galbeed ee qaaradda Yurub qaasatan dalka Switzerland Zurich waxaan doonayaa inaan ka hadlo xibin ka maqan dadweynaha koonfurta galbeed ee Soomaaliya oo iyagu dulmigu daashaday sida aan ka warqabno dastuurka federaalka ee Soomaaliya waxa uu qorayaa Soomaaliya in ay qaadatay nidaam federalism ah beesha caalamkuna ay iyadu raali ka noqotay dastuurkaasi isaga in kastoo qabiyo qoraal uu yahay waxa uu tilmaamayaa dawladda dhexe ee xarunteedu Muqdisho tahay in hanaanka federaalka Soomaaliya lagu soo xulo waxa loo yaqaano deegaan wadaag in kastoo Ingiriisiga uu leeyahay majority leads minority dadka yar waxay cod ka siiyaan dadka badan haddana iyadoo taasi ay jirto ayaanu waxaan ognahay koonfur galbeed Soomaaliya in dad fara badan ay degan yihiin oo Soomaali oo dhan ay u dhan tahay in kastoo lagu kala badan yahay nidaamka koonfur galbeed Soomaaliya ka jira ee waafaqsan dastuurka federaalka Soomaaliya maanta waxaanu aragnaa in shanta beelood ee Soomaaliya beel kasta xuquuqdii ay ku lahayd haday guri ama deegaan beer ay ku lahayd la siiyay laakiin taa cagsigeedu waxa la yaab leh la jiifiyaana banaan la joojiyaana banaan mididan labada af kale ee sida abeesada ama maska oo kale isrogrogaya ee ka jira gobolada qaar ee federaalka qaatay caawa waxaan u doodayaa lidda aan ku ahay maamulada Galmudug iyo Puntland Soomaaliya sida aan ka warqabno shacabka koonfur galbeed ee Soomaaliya durbaanka markuu yeeray gumaca uu wiifleeyay garowga uu yeeray waa la wada qaxay waa la wada dureeray waxay u qaxeen Somaliland waxay u qaxeen Puntland waxay u qaxeen Galmudug intaba way degan yihiin waxaan xusuusanahay ganacsiga ugu badan ee Puntland ka jira ee Somaliland waa dadka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wada haddana Puntland waxay ka mid tahay nidaamka federaalka Soomaaliya ma hayno hal xildhibaan ama hal wasiir oo ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya ka mid ah dawladda Puntland maxay ku dhacday taasi waa su'aal u baahan in ay ka jawaabaan reer Puntland iyo ma arkayse dadka reer koonfur galbeed ee Soomaaliya sida aan ka warqabno dunida dalalka horumaray iyo dalalku aan horumarin third world meesha aad degan tahay cashuur markaad bixiso oo dhaqaale macnaheed contribution ay samaysid dalka xuquuq baad ku yeelanaysaa maamulkaad wax ku leedahay waad codayn kartaa macnaheed xibin baarlamaanka u ordi kartaa wasiir baad noqon kartaa xitaa madaxweyne noqon kartaa maxay u diiday mise qabyaalad baa jirta taasi waa taas Galmudug waxaan xusuusanaa Galmudug aanan jirin markii la aasaasay ninka la leeyahay engineer chemical oo markaas isagu ahaa aasaasii madaxweynaha Galmudug caalinka hor iyo Cabdi Qaybiid 25 xildhibaan bay lahaayeen Galmudug laba kamid ah waxay ahaayeen dadka deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya ka soo jeeda laakiin ee degan deegaanka Galmudug degan haday noqon lahayd gaalkacyo haday noqon lahayd godinlabe cadaado gurceel iyo dhuusamareeb laakiin waqtiga kan oo loo gudbay nidaam federaal rasmi ah maxaa u diiday dadka koonfur galbeed Soomaaliya in ay ka mid ahaadaan maamulka Galmudug taasi waa calaamad su'aal loona baahan yahay in ay ka jawaabaan dadka sheegtay Galmudug ee iyagu nidaamka federaalka waanu qaadanay ka soo gudub koonfur galbeed ee Soomaaliya sidee ku dhacday in koonfur galbeed Soomaaliya dad u dhashay gobolada dhexe ay degan yihiin maamulkana wax laga siiyay looguna diido dadkii koonfur galbeed Soomaaliya iyagu degan Galmudug state in maamulka wax laga siiyo anigu waxaan leeyahay ma doonayo inaan wax cambaareeyo laakiin xuquuqda adigu aad leedahay Soomaalidu waxay hadal raagay ee Soomaaliyeed baa wuxuu yiraahdaa xibin aad leedahay hodantinimo loogama tago federaalka hadii Soomaali ay wada qaadatay ayna ku qaadatay deegaan wadaag waxa loo baahan yahay
Puntland iyo Galmudug iyo maamulada la midka ah in ay iskartaan isla markaana xuquuqda ay dhiibaan anigu haddaan aan xad gudbo macnaheedu waxay noqonaysaa carabkan lala xishoon marbuu lulug cantuuga waxaan doonayaa dhanka kale inaan ka hadlo arrinta muqdisho ilaa hadda maamulka Munga waxba kamana siiyo degmooyinka 17 degmo ee Muqdisho koonfur galbeed ee Soomaaliya dadka ugu badan iyagu xamar kala bar iskale degan ganacsiga wada ilaa hadda hal mas'uul ma hayno waxaan xusuusanaa hal mas'uul ayaa mar degmada Wardhiigley loo dhiibay isagana habeenimo la dilay ayaa darada haysata dad koonfur galbeed waxay tahay ninkii mas'uul noqdana ma difaacan haddii la caynayo haddii la dilayo taasi waa dadnimo xun waxa loo baahan yahay organity baa loo baahan yahay qarannimo loo taagan yahay qarannimadana isku duubnibay tilmaantaa in la isu damqadaa loo baahan yahay koonfur galbeed Soomaaliya waxaan kula dardaarmayaa hana xadgudubna yeelina Puntland iyo Galmudug iyo maamulada la midka Somaliland waa budo gooni loo tumay arrinteedu waxa weeye ama goosasho ama taasi diba macnaheedu aan kaga hadli doono laakiin maamulada hadda ka jira Soomaaliya waxaan doonaynaa dadka koonfur galbeed ee Soomaaliya haddaanu nahay in xuquuqda aanu ku leenahay si barax tiran ay u siiyaan dadka koonfureed oo iyagu degan deegaanadaasi ganacsiga iyo wax walba ku leh televisionka koonfur galbeed ee Soomaaliya ama warbaahinta koonfurta galbeed ee Soomaaliya xooga badan ee iyadu wararka baahisa xaqiiqdana ka hadasha maadaama stuudiyeeda ay ugu casuultana waxaan u leeyahay waad mahadsantihiin barnaamijka aad iga wareysateen ee ah ma arkaysa fikradaada sidee kula tahay maamulada Galmudug iyo Puntland xuquuqda koonfur galbeed ee Soomaaliya salaamu alaykum firdawsa